الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامتو عن داوديال وسو دواده برامجka martida Kalson TV oo toddobaadkan idinka geemaanay magaalada Muqdisho aniga Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa idin soo jeedinaya daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxa marti noogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wax ka weydiin doona arrimaha la xiriira wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qorshayaasheeda la xiriira dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ahaa dalka Yemen oo hadda dalka dib loogu soo celinayo dagaaladii intiina la socoto toddobaadii ugu dambeysay ka dhacay deegaano ka tirsan xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan arrimaha jubbooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya mooshinka la xiriirta sidoo kale wasiirka waxaan la wadaagi doonaa arrimaha la xiriira sidii toddobaadyadaan baad ka daawanayseen guud ahaan warbaahinta Soomaalida waxaa jiray ololo xukuumadda federaalka gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ay ku soo nooleynaysay dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo barnaamijyo fanka ku saabsan oo lagu tartansiinay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhaqanka ay ku soo bandhigeen lagu qabtay magaalada Muqdisho mudan wasiir marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida Kalson iyo TV Kalson anagoo kaaga mahad celinayna waqtigaad ma siisay anagoo ogsoon shaqada qaran ee aad ku jirto وزير سواش وجوهر صدام كويديو تانية مركي حكومة دان رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد لصولي سي وزير كم من نقطة محاك على قبصة وزارة الغرفة بسم الله عادي أربعة مع تنتهي رنتي وحنا يكره واحد بدنا بنوقف صومي واحد بدنا نقر شيارنا وعلينا ونقر شيء سيئين تصارحان وحنا يكره وزارة الغرفة فينتو ووزارة الغرفة وزارة دلك waxay wakiil ku leedahay dhamaan gobolada dalka waxay wakiil ku leedahay dhamaan inta badan meelaha Soomaalida safaaradu u fadhiyaan caasimadaha wadamada dibadda ee Soomaaliya xiriirka fiican la leedahay wakiil ayaan ku leeyahay marka wasaaradda aad u ballaaran weeye wasaaradda gobolada qaranka Soomaaliyeed ay hoos yimaadaan weeye iyo warbaahinta dalka ama maragtay midda dawladda iyo midda private ka marka baaxadda ay leedahay awgeed anaguna waxaan isku daynaa inaan shaqo adag qabano waxyaalaha aan dhihi karo inoo qabsoomeen muddadii aan joogay 4 bilood ahayd waxaa kamid ah marka ugu horeysa waxaan isku daynaa inaan horumarino barnaamijyada ka baxa warbaahinta dawladda TV-ga qaranka iyo raadiyaha oo aan dhihi karo hadda TV-ga qaranku daraasad la sameeyay waa ka ugu dhageysiga badan warbaahinta Soomaaliyeed maadaama uu ka hadlayo had iyo jeer wixii dal guud ah qaranka Soomaaliyeed anagoo dhiirigelinayna runtii oo aan adarmeen gareeyeen warbaahinta private ka ah iyaduna rol xaalad ka qaadato horumarka dalka iyo wacyigelinta bulshada xagga barnaamijyada ka baxa warbaahinta dawladda waan horumarinay waxaanu furnay meel production center aan u bixinay ama xarunta wax soo saarka oo barnaamijyada ay qabtaan dawladdu iyo kuwa dhacdooyinka maalintaas dhaca iyo barnaamij cilmiyeedyada ay soo sameeyaan warbaahinta dawladdu iyo shirkadaha ama saxaafadda ka soo baxaya meel laga qaato oo warbaahinta xorta ay ka qaadato warbaahinta dawladuna ka qaadato oo ila wareed aan sameeynay waxaanu furnay oo dib u furnay wakaaladda wararka ee Sona oo ahayd hay'ad aad sumcad weyn oo adduunka oo dhan magac weyn ku lahayd waa dib aan u furnay waxaanu furnay website dawladeed oo dawladda xogteeda laga heli karo for example golaha wasiirada magacyadooda qorshaha wasaarad kasta baarlamaanka iyo xubnihiisa guddiyada baarlamaanku u qaybsan yahay waxyaalaha qorshayaasha oo qorshaha dhow iyo qorshaha dheer iyo qorshaha dhexe oo ah wasaaradaha ayaanu furnay oo hadda ay iyo dabcan profilkii Soomaaliya for example Soomaaliya qariiradeeda dhulkeeda dadkeeda khayraadkeeda waxa ay ku fiican tahay maalgashiga fursadaha ka furan adduunka iyo Soomaaliduba ay ka dheehan karto ayaanu furnay waxaanu xiriir fiican la sameynay wasaaradaha dhigayaga ah ee caalamka oo shirkii Qaahira ee ugu dambeeyay aanu kula kulanay 22 wasiir ee jaamacadda Carabta oo aanu kala hadalnay horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed oo runtii heer fiican oo marasa xiriir fiican waxaanu leenahay dabcan goboladan hadda dhismaya ee federalismka wasaaradaha ka dhismaya marka waxaan dhihi karaa si xawli ah aan ku soconaa oo horumarka wasaaraddu ku socda
wasiir waxaa jirtay bilihii ugu dambeysay ololo wasaaraddu ay aad u waday oo magaalada muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya iyo dadka dunida jooga Soomaalidaba ay la wada socdeen ee la xiriirtay ololahan dib loogu soo nooleynaya dhaqankii Soomaaliyeed oo tii ugu dambeysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo fanaaniina tartan loo qabtay ujeedka laga leeyahay arrintaas maxay tahay والله ujeedka laga leeyahay habeenkiina waan sheegay oo tartanku socday ujeedka laga leeyahay Soomaalidu waa dad walaalaa oo saddex jeer la sheego isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin iyo wax walba isu arti iyo adeer iyo ilmaarti isu ah laakiin haddana si daro 25 sano ay dhibaato ka jirtay oo dadka la kala fogeynayo ama siyaasad dawladda ka timid lagu kala fogeeyo ama siyaasad xuquuq gudaha ka jirta lagu kala fogeeyo dadka Soomaalidu waa soo walaal qofka maanta Hargeysa jooga qofka Garowe jooga qofka Xamar jooga qofka Baydhabo jooga waa isku nool waxa laga yaabaa inay qalada isu xawilaan oo hadda tiknoolajiyada jirta isugu diraan dad walaalaa weey laakiin runtii wax kala dhex galeen oo danahoodii ay ku dhoween oo dhibaato qaba maanta kulligood qof kasta dhibaato qabo muddo badan ba culayska waxa la saarayay amniga ciidamada laakiin anagu wasaarad ahaan iyo waxaan u aragnaa in xalku ku jiro in Soomaalida dhaqankeedii dib loo nooleeyo dhaqanku waa waxa Soomaalidu kusoo dhaqmi jirtay dhibaatooyinkooda ku xallisan jireen ku wada cabbi jireen ku wada cuni jireen ku guursan jireen ummadii Soomaaliyeed ee noolayda fiicnayd dhaqankaasa u ahaa mishiin dhaqanka u ahaa siyaasad dhaqanka u ahaa xeer dhaqanka u ahaa dastuur kaasa noolaynayna waxaan isku daynaa inaan Soomaalida dhaqankaasaan wadnaan meelo badan oo dalkaabu ka socdaa wasaaradaha warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolada dhismaya isla qaadanay waana fikad soo shaqaysay runtii oo meelo badan ka soo shaqaysay waqtigii quraca ee dalka Soomaaliyeed uu gaaray guusha dawladda Maxamed Siyaad Barre Soomaalida dhaqankeedii iyo wanaageedii iyo jacaylkeedii bay kicisay warbaahinta iyo wasaaradda warfaafinta waday hadda maalintiina tusaale soo qaaday madaxweynaha kilinka shanaad oo kale qiimo badan weey oo runtii dadkii dhaqankii ku soo nooleeyay TV-ga iyo dhaqankii ku soo nooleeyay kaas oo soo gaaraan dhihi karaa marka waa naga go'aantay wasaarad ahaan inaanu dhaqanka Soomaaliyeed xoojino u isticmaalno mishiinkeena nabad iyo isku kalsooni iyo isdhexgal iyo walaaltinimo ummadda Soomaaliyeed dib ay u samaysato ayaan u isticmaalayna wada ku dhiirigelinayna dhammaan Soomaalida daafaha adduunka ku nool inay dhaqankoodu u soo noqdaan wanaagsana oo ka dhigtaan mishiin iyo dastuur ay ku dhaqmaan kaas wax walba ka wanaagsan waxaan kale kornaa ka soo dhoofiyay waa ku wareernay baan anigu qaba wasiir waxaa jirta dhalinyaro arintaas dhaqanka wasaaradda kala shaqeysay dhaqanka Soomaaliyeed soo bandhigay tii haddaan soo qaadana xafladii lagu qabtay City Palace oo kale oo ugu dambeysay laakiin dhalinyaradu niyad ahaan ma jiraan wasaaradda iyo meelo ay ku xiran yihiin marka laga reebo wasaaradda warfaafinta oo dhiirigelinaysa dhalinyaradaas maxaa wasaaradda kaga qorsheysay waxna la qorsheysay shalayna kuwa kamid ah kooxaha qaar kamid ah la kulanay waa run waa dad fiican oo dhalinyaro aad u fiican oo habeenkii quruxdii ay lahaayeen iyo waad aragtay iyo dareenkii ku jiray annaka oo siyaasiyiin oo hogaamiyayaal waa haddaan dooto naga dareen adag iyo naga fiican yihiin waana ku soo dhaweynaa hogaanka Soomaaliyeed iyo masraxa Soomaaliyeed inay hogaan u noqdaan ku soo dhaweynaa waxaan doonaynaa dalka Soomaaliyeed kooxuhu leeyahay waaweyn kooxahaas oo weyntahay gobolada waabari waxaan isku daynayna kooxaha ku lifaaqno weligeedba kooxaha Soomaaliyeed waxay lahaayeen kooxo fan oo xagga suugaanta iyo wada iyo kooxo dhaqan marka waxaan isku daynaa kooxaha dhalinyartu iskood u abuurteen wadaniyada ay ku abuureen runtii doonaya bulshada ku wacyigeliyaan oo ku lifaaqno kooxaha qaranka ee jira dhalinyarna ay halkaas hosti garayso oo ay ka helaan qalabkii iyo wixii u baahnaanay iyo tasiilaadkii ayaan isku daynaa marka hawl fiican baan ka wadnay inta wasaaraddan joogta arrintaas ma guda galaysaa طبعا وزارة انت نجوي دونا وحوي الصوماليين وحال داخل الكيد وقت كوبان لكن كل وزارة دنا يعني مرة الوزير بنك سواء هنتري وكشيء كي وقت جي وزير كا على بكون يشيل طبعا على بكون لحية طبعا وزارة دو حب مراحين حفيظ مراحين شو هربان تجمع سلا على ساعتان لا سداد وزير بان هالقلو جلاس كود سلحين ترمي waxay nidaam wasiirka ah waxaan ku faafin jiray warka dawladda internet aan laga dhageysan jiray markii ugu horeysay sharciga saxaafadda hadda yaala golaha baarlamaanka aniga ayaa markii hore soo istiifgareeyay
laakiin maanta xafiis baa jira TV baa jira warbaahintii Soomaaliyeed kalena way horumartay marka waxaan dhihi karaa horumar kasta oo aan sameeyo xad baan ku joojinaya qof baan iga dambaynayo xilliga ma garanayo arinta dhaqanka iyo waxqabadka wasaaradda haddaan intaas kaga soo gudubno wasiir waxaad la socotaa dhawaan markii dagaaladu ay ka dhaceen dalka Yemen waxaa jiray dad Soomaaliya oo dalkaas qaxooti ku ahaa oo dalka dib ugu soo laabanay inkastoo horey xukuumaddu ay uga hadashay kaalinteeda haddana dadka maxaad uga bidhaamin kartaa markaan waxaan uga bidhaamin karaa arrintaasi arrin heer qaran weeye dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa dhibaato adduun oo dhan baa qaarkood u dhamaatay waxay ugu dhamaatay dalkan ay ka qaxeen 25 sano xero al-jaxiira la dhaho ayay ku jireen dhibaatooyin badan baa ku haystay daryeel la'aan baa ku haysatay laakiin nabadgelyo bay halkaa u tageen isla meeshiiba haddana 22 sano kadib ay dhibaato kale kaga dhacdo dagaalkii Soomaaliya kale kaga dhacday dad liita oo jismi ahaan aan u adkaysan karin dhibaato badan oo runtii aan dhihi karo waa ummad daalan dawladda Soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu dadaashay inay maragtay dadka wacyi geliso wixii karaankeeda dhiinto wada socota baarlamaanka oo aan dhihi karo duruufta uu ku jiro bila badan mushahar hadda ma qaadan inay lacag iska ururiyeen oo maraakiib kareeyeen xukuumadda Soomaaliyeed wasiirada inay lacag iska ururiyeen dad ganacsatada Soomaaliyeed inay maraakiib ilaa xad ku dhawaaqeen lacag badan in la ururiyo guddi heer qaran in la sameeyay Soomaali diaspora ama jaamiyadaha banaanku inay iyaguna dagaal wadaan ganacsato badan inay wax ku deeqeen maamulada Puntland iyo Somaliland inay si fiican u soo dhaweeyeen waa arrin gurmad qaran u baahan oo runtii aad iyo aad u adag dawladda dareenkeedu waxa weeye ummadda Soomaaliyeed yani cidna wax ka sugo iyadu isu kacdo iyadu isbadbaadiso iyadu dalkeeda nabadgelyada ku soo wax kasta oo aan sameeyno dib ka biximayno bariya ka biximayno tuugsi ka biximayno ilaa dalkeena inta nabad ka dhigno waa khayraad badan iyo wax soo saarkiisa la soo baxno marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa fursadan inay dadka u gurmadaan qofkii $100 heli karaya qofkii $100 heli karaya qofkii $100 heli karaya qofkii ka badan heli karaya in dadkaas loo gurmado sida ugu adag loogu gurmado markabkii aanu dirnay hadda muqallu taagan yahay waxaan ugu baaqayaa inay dadku soo gaaraan oo markabka waxa la sheegay tiradii dadka uu qaadi lahaa inaanay hadda u diyaarsaneen oo ilaa kun iyo wax ay diyaarsan yihiin ilaa 2500 uu soo qaadi karayay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka inay soo gaaraan markabku intuu taagan yahay halkan gudaha markay yimaadaanna waxaan isku dayi doonaa inaan si fiican dadka u daaweyno wasiir laakiin dadkaas markay Soomaaliya ka tagayeen waxay Yemen u raadiyeen nolol midda Soomaaliya oo dagaal ay uga tageen ka duwan hadda wadanka way ku soo laabanayaan iyagoo aan waxba haysanin waxba wadanin maxaa qorshaha xukuumadda dadkaas ay u diyaarisay gaar ahaan wasaaradaha arrintaas ku shaqada leh والله والله شيء وزارة كريم ما هي قرن بالله شيء مدحوينا قلها وسيلة الرئيس وسارو جيريو وهذا بوشة الرئيس كل ما لا يلمي كان عسته كل ما لا يلمي ما ملا هذا ذلك كتير مراقب كذا كسر دجان حديث شوك طبعا لا نهاي وحى قرشها أنا بأفنوني وحى صلنا ممكن يسوقين أولود إنه بيلاقي صناعة ده ماذا معمولة كتير معمولة العقد بين حيستمعها لكن هذا نوع حنا كفر حسنا إن صومالي هذا إسكت الشتاء ودد كده وتبرت كده إسكت الشتاء وحنا بقر شيء سنة ما بقر شيء سنة دد كاسوا ولا بقره وصدق dad waa dad Yemeniyiin toos ah oo dalkoodii ka soo qaxaya dadna waa dad wadamada kale dariska inala asla Ethiopia iyo Kenya iyo u dhashay dadna waa dad Soomaali ah marka saddexdoodaba saddex qaabaan u qaabilayna dadka Yemeniyiinta aan ugu horeysiyo waxaan leenahay maadaama idinku ay soo dhaweyseen soo dhawaada idinku dalkan ku soo dhaweynayna مسؤوليتهم وحاسكرها هيدا يونيشنكا سنجونا سيار يدولة الصومالية iyo dadka Soomaaliyeed laftigooda si gaar ah loo dejin doonaa meel oo amaankooda iyo noloshooda looga warhayn doono dadka u dhashay wadamada dariska badankooda safaaradaha waxba u joogo inay gudbaan oo dalkoodii tagaan ayaanu qorshahayeenu yahay haddii aanu markaa duruuf kale oo ama siyaasadeed aanu uga maqnaanayno oo nabadgelyadiisa la xidhiidha sida sharciyada caalamiga ah qabaan wax dalkooda u gudbinayno dadka Soomaaliyeed waxaan noo qorsheynaa horta inaan markaa xaaladooda qiimayno warsanno waxay awoodaan meeshay u dhasheen waxay ku heli karaan markaa kadibna aan isku dayno inaanu deegaankii ay ka soo jeedeen geeyno muddana ku hayno inay intay bulshada dhex gelayaan wixii aan ama hay'ada aan isticmaalno ama ganacsatada deegaanka aan isticmaalno ama deeq kale oo Soomaalidu dhiibtay aan isticmaalno laakiin aan ku hayno deegaankii intay la qabsanayaan aan ka warhayno ku daba socno aan ugu talagalno
haddaan u gudubno arinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maalmahanba iyo bilaanba aad ay ugu mashquulsaneyd dhismaha maamul goboleedyada dalka ka jira wasiir waxaad ogtahay in hadda goboladii dhexe dhismahooda uu socdo gobolo kale oo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir maamuladooda ay dhiman yihiin wax badanna aysan naga xigin doorashadii 2016 la filayay inay dhacdo sidee arrimahaas waqtiga kooban ay isku qabanayaan runtii arrimaha federaaleynta dalka Soomaaliya iyo dhismaha maamul goboleedyada wanaaguna waa leedahay Soomaalida oo anigu aan ku jira wanaag badan waa laga filayaa caqabadana waa leedahay wanaageeda waxaa kamid ah in dadka Soomaaliyeed sida iyaguba markii hore sharciga loo keenay maamulka loo dhaweeyo sharciyadii loo dhaweeyo dugsiyadii loo dhaweeyo immigrationkii loo dhaweeyo madaxdii go'aamada degaankooda horumarintiisa qaadanaysay loo dhaweeyo si iyaguna markaa u dhistaan oo nidaamkii mar walba xamar wax walba loo aadaayay ama dawladda dhexe loo aadaayay la fuudeeyo ayay leeyihiin dadkuna ku tartamo horumarka dhinaca positive bay ka tahay dhinacan kale waxyaalaha qaarkood Soomaalida waxay ku noqon kartaa culays oo runtii marka hore federalism fikir kama haystaan Soomaalidu ama ma yaqaanin dadka badankiisu number 1 number 2 Soomaalidu waxay taqaan waxa laga arkaa qabiil inay qabiil wax ku samaysato waa cilad aad iyo aad u xun oo Soomaalida daawo aan dhihi karo daawadeedu way dheer tahay laakiin waxna aan u taray wax ka hadlaysa Soomaalida number 3 ciladaha ay leedahay ma jiro sharci hadda maamuladani ku dhismayaan maamuladu way ka hor dhaceen sharciga dastuurka ku qoran waxa weeye iyadoo waxba la bilaabin in guddi la dhiso xuduudaha dadku tagaan maamulada dhinaca kalena dastuurkii dib u habeyntiisa ka socoto dastuurkii oo socda iyo guddiga xuduudaha la sameeyay guddiga xuduudaha dadka soo warsadaan maxaa rabtiin ma federaal baa rabtiin hadday yiraahdaan xagee rabtiin ma ku darsataan daraasad soo sameeya daraasadda markay soo sameeyaan golaha baarlamaanka keenaan golaha baarlamaanka oo dhameeyay dastuurkii dib u habeyntiisa markaa kadib la dhaho daraasaddaas la soo sameeyay dalku intaas oo federalisteed buu noqon karaa 5 6 2 7 waxay doonto ha noqoto xuduudihiisana dadkii markaan soo warsanay walahaas ay marayaan baarlamaanka Soomaaliya markaa dastuurkii iyo statesku sida u dhismayaan go'aan ka gaaro ayaa qorshuhu ah unfortunately Soomaalida qaar kamid ah kacay oo yidhi waa bisugay markaas waa in state la dhisaa laba qodob Soomaalidu wixii markaa qodobada dastuurka ma wada akhrido qodobkii markaa dawladdu jirtay akhrida oo markaa qofku fikirkiisa uu ku xoojinayo laba gobol iyo wixii ka badan weeye oo la dhisa stateska dhismaya waxay dhismeen sharciyadii lagu dhisi lahaa ka hor waa wax keeni kara Soomaalidu inay iskhilaafto wax keeni kara Soomaalidu inay isdisho wax keeni kara hadhow xuduudaha in la isku diro wax keeni kara Soomaalidu in la barakiciyo anigu personally markaan shakhsiyadeeda ka hadlo waxa la isteedada dhismay kuma dhisna hab sharci ah sharciyadoodii oo aan la samayn ayaa la foom karay ayay ka hormaray muranka iyo qajajacda iyo isqabsigana waxa keenay hadda waxa looga yaala waa dhiirigelinayna hadda waxaan leeyahay wax una dhismaa wax la'aan bay ka fiican yihiin hadda waxba dhismay Puntland iyo horay si fiican ugu dhismay state la yaqaan oo martay muddo soo shaqeynayo hay'adihiisu dhisan yihiin Jubaland way dhisantay koonfur galbeed waa dhisantay gobolada dhexe hadda gacanta lagu hayo inkastoo muran iska jiraan gobolka dhimanna waa sameynayna marka inkastoo aan sharciyad ku dhisan hadda diifaadku inay ku dhiskaan mooda iyada laftigeedu ma inay sameynaysaa haddii aan hadhow xuduudo iyo laysbarakicin iyo aanay ka imaanaynin marka dawladdu maskax badan bay gelisay waad aragtay inta jeer madaxweynaha meel walba ku noqday sacrifice uu sameeyay marka waxaan ka filayaa wax khayr la ka soo baxo waayo wasiir laakiin maxaa diidaya iyadoo shaqadaas ay socoto in baarlamaanku haddana shuruucda caynkaas ah ee arrintan federalismka ku saabsan inay dadejiyaan oo labada dhinacba la isku wado waa wadnaay hadda guddiga xuduudaha golaha wasiirada ka soo gudbay baarlamaanku hor yaala guddigii dastuurka dib u habeyntiisa waa la magacaabay wasaaraddu way taagan tahay guddiga baarlamaanku waa taagan yahay waa gaabis oo duruufaha gaabinaya hanti la'aanta gaabinaya tashiilaadka gaabinaya khilaafka iyo waxaan qabiiladu marba karinayaan baa gaabinaya laakiin way socotaa dhinaca baarlamaanka waaya dhinaca gobolada dhexe haddaan eegno galgaduud gobolka galgaduud wuxuu xuduud la leeyahay Ethiopia oo dad daris oo walaalaha nahay maalmihii ugu dambeysay waxaa ka dhacay wasiir sidaa la socotaba dagaallo deegaanadaas ka dhacay xukuumadda Soomaaliya maxay arrintaas ka ogtahay maxayse kala socotaa wax badan baan kala soconaa runtii dagaalku inta sida la sheegay wuxuu ka dhacay dhinaca Ethiopia ayuu markii hore ka dhacay
ولا غير مركي تبدون كإن حق الصومالي وحكسوا الجاري بدك إصدقوا أنا والصومالي هذا الصومالي ده يعني هو حنودي لها الصومالي ده هذا السلام كهل لأنه ميرو بقحوتي كنت هاي ميرو بمجد عيدي وكبا باي qofka Soomaaliga inaa du Ethiopia degaya ya du Kenya degaya ya du Soomaaliya degaya du Djibouti degaya waa Soomaali waa isku midab waa isku af waa isku diin adduunku ma kala yaqaan iyagu ba iskala sheegsheeg waxa isdiyaana waa iyaga 20 sano bini'aadan adduunka qabiil isku daaya ma jiro marka horta Soomaalida waxaan dhihi lahaa haddii ay dhaqan leedahay haday diin culimo leedahay haday siyaasi leedahay ba dib la isugu noqdo oo la dhowr dadkii waa ka xumahay isku dana waynu nahay maxaan ku bedelnaa dhaqankan colaada iyo nacaybka iyo aan dhamaana dadka isdireeya dad Soomaaliyeed Soomaalida waliba hadda waxaad moodaysaa 25 sano sidii ay ahayd ka sii indhaxun tahay oo way ka sii daraysaa qabyaaladana way ka sii galaysaa maamulkii baa la soo dhexgelinaya ciidankii baa la soo dhexgelinaya waa nasiib darro marka aad baan uga xunahay dagaalada halka ka dhacay dadka ku dhintay ama dhinaca Itoobiya ka dhinteen ama dhinaca Soomaaliya ka dhawada waa Soomaali aad baan uga xunahay dawladda Soomaaliya way isku dayday waxaan tagnay jibjiga walaalahay halka deganaa la soo hadalnay dawladdu wafti u dirtay dadkii ku dhintay dadkii ku dhaawacmay dib badan ama Soomaaliya ku qaba Itoobiya ku qaba wax ka xunahay dagaalan loo baahnay oo waxa ka shaqeeyay aqal fiican aan ilahay weey waa ka xunahay dawladdan kala hadlayna shacab ahaan iyo dawlad ahaan waa noo hadlayna dadka degan arinta ku saabsan jubooyinka haddaan eegno baarlamaanka Soomaaliya waxa la socotaa inuu mooshin ka keenay dhismaha golaha wakiilada maamulka Jubbaland go'aan oo ka qaatay oo go'aan baarlamaanku ka soo saaray madaxweynuhu si uga hadlay xukuumaddu si uga hadashay hadda waxa laga dhow sugayahay waa go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay qaadan doonto iyo sida loo wajihi karo marka la maamulkaas maxaad shacabku ku daawanay kala wadaagi kartaa wasiir wallahi waxaan kala wadaagi karaa horta sida aad sheegtay arrintaas way dhacday mid waxaan dhahayaa dawladda Soomaaliyeed iyo Soomaalida oo dhan mina maamulada dhismay midda dawladda Soomaaliyeed dhahaya waxa weeye runtii xukuumaddu mowqif fiican bay ka qaato ra'iisul wasaaraha tagay meesha cabasha ka jirta cabasho oo aan la dafiri karin oo dad badan oo deegaanka dad badan ay cabanayaan ayaa jirta oo maamulka waftigiisu garawsaday oo maragtay uu markii ra'iisul wasaaruhu tagay uu garawsaday si fiican baa maamulka iyo dawladdu u wada wadeen ra'iisul wasaaraha tagay madaxweyne Axmed iyo soo arkay goliyo oo dhan waxa lagu heshiiyay in guddi laba dhinac la saaro oo cabashadii la qiimeeyo laakiin runtii hawsha dib baa looga dhacayo baarlamaanka oo reebi marka mooshiinku meeshii ugu dambeysay gaaray oo codayn buu gaaray marka uu ra'iisul wasaaruhu tagay Soomaalidu marka hore siyaasaddu ay bilowga tahay oo dhibaatadu karsanayso waa la iska aamusaa marka dambe meel aan waxba laga qaban karin gaadhayna markaasna waa la is eeday marka waxa uu fiicnayd in markii hore ay wax bilowdeen ay xukuumadda iyo maamulka iyo guddoonka baarlamaanka inta ay isu yimaadaan inaan arrinta sidii ku xalinayo marka iyadoo bilow la galo hadda laftigeedana waxaan leeyahay xalku waa imaanaya oo dhibaato male Soomaalidu is qabsataa weligeed baa la heshiin jirtay xukuumaddu meel fiican bay ka istaagtay ra'iisul wasaare markuu soo arkay maamulka iyo madaxweynaha waxa lagu heshiiyay in guddi laba dhinac la saaro arrintii la fiiriyo taas buu hadda madaxweynuhu taageeray go'aanka baarlamaankuna waxa la hagaajiyo oo weey cabashada hal la xalliyo oo weey waxaan leeyahay haddii guddiga golaha wasiirada waa la magacaabay already ay meesha tagaan maamulkii sarkaan cabashooyinkii xalliyaan oo beelaha haddii qaar tamanayaan soo arkaan baarlamaankuna taas uu ku qancaya baarlamaanku waxa uu uga jeeday waxa weeye war wixii waxba ka khaldan maragtay halla hagaajiyo cabashada dadka halla tixgeliyo waa maamulkuna sida aan sheegay waa xalmaynaya meelaha qaarkood inuu tixgeliyo diyaar buu yahay taas marka ay maamulada Soomaaliyeed hadii jeer waxaad maqashaan haddii uu wax yar oo khilaaf uu soo dhex maro dawladda iyo maamulada inuu xiriirka uu gooyo waa nasiib darro runtii wax waliba meesha ugu dambeeya kama bilowda haddii xataa meel wax ka khaldamaan meesha kale wax laga rabaa waxoogaa bini'aadamka yahay waxa laga rabaa deganaan ayaa laga rabaa marka waxa fiican in maamuladu waxaan iyagaa leh rag hadda maamulada ka tirsanaan jira ninka kusmaa ra'iisul wasaaraha maanta waa ilkajiir wasiir Puntland buu ahaan jiray Ahmed Madoobe iyo maragtay Cabdiwali ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ahaan jiray waxaa leedahay kuraastan aan ku fadhinaa maragtay xilka u goobay idinka bari imaanayee
waxbaa imaan kara waxbaa aynu isku qaban karnaa si qabooban ha loo xaliyo dal baynu nahay haddii xidhiidh goynayso Somaliland baa goyn lahayd 20 sano maragtay raadinaysay marka dowladda Soomaaliyeed baa isku nahay halka ayaa la gaarsiinayaa war waxbaan ka qabnaa war waxaan si khalad ah loo maamulay war lama qabato wala la isu yimaado ayaa runtii ku dhiirigelinaa laakiin markaan dhinaca dastuurka waxa uu qabay sharciyada ka eegno maamul goboleedku markii sidan oo kale wax dhacaan xaq ma u leeyahay inuu yiraahdo dowladda dhex xiriirkan u jarayna xaq uma laha dalkan dal Soomaaliyeed weeyo United Nations ku jira oo Soomaaliya loo yaqaano Kismaayo Soomaaliya loo yaqaan Xamar Soomaaliya loo yaqaan Hargeysa Soomaaliya loo yaqaan David Garowe Soomaaliya loo yaqaan marka kumana go'ayso hal qof maragtay fikirkiisa kuma go'ayso dadka referendum baa laga qaaday isugu darsaday ninka Kismaayo jooga referendum baa laga qaaday referendum Soomaaliya wax lagu goyn karaa ma iyo qof fikirkiisa wax lagu goyn karo wax ku ceeba dowladda iyo qof mas'uul ah inuu yiraahdo maragtay dalka Soomaaliya ayaa goynayo waa kala goynaya waa wax ceeb weeye wax dhinaca la iska dhaafo eriga marda biyaa la dhihi waxaa jirta Soomaaliya iyo Kenya xadka u dhaxeeya in hadda dowladda Kenya ay bilowday in darbi ka dhisato sababo ay ku sheegtay amni la xiriira dhinaca amniga la xiriira xukuumadda Soomaaliya arintaas maxay kala socotaa dowladda Kenya waxa leeyahay Soomaaliya iyo idinku isku amni baad shabaabku waa cadowgiina waa cadowgeeda isku mid baan ciidamada Kenya Soomaaliya jooga shacabkii Soomaaliyeed dad badan iyo qaxooti badan baa xagga jira isku danbaan ay geeska Afrika isku danbaan isku cadowna waan waxa la dalba iska xiraa marka wax ku kala duwantay annaka dowladda Kenya shacabka Soomaaliya shacabka Kenya wax ku kala duwan adawgaalooda ku soo xawilay qaacidada inuu iska qabano deedna nabad iyo ganacsi iyo nolol galmooy darbi ma qabto halkan wax amniga soo kordhinaayo dowladda Kenya waxaan leenahay oo uma marin maayo realistic yahay aniga in darbi halkaas lagu kala gooyo dad walaalaha oo maragtay dana badan ka dhaxeeyaan waxaan qaalinaynaa in East Africa isku suuq noqoto isku dad noqoto isku future isku dawlad noqoto sida European Union ka oo kale ay mudan wada yeelan marka darbigaas anaku dowladda Kenya ilaa hadda wax sida dowladda madax badan sheegtay wax official kama hayno haddii la dhisayna wuxuu u baahan yahay qof kaliis kala dhisi karo wuxuu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay meeshu marayo iyo sharciyad u baahan iyo dalba ku jirtaa kuma jirto marka wararka dowladda aad bay u soo gaargaareen hadda wafdigan aniga wafdiga ku jira ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay inaan tagno deegaanka oo soo qiimeeyno bal dadka korseelkooda iyo waxa meesha ka jira aan soo fiirino wafdi golaha wasiirada laakiin waxaan is leeyahay faham intaa ka fiican baa yeelanaysa idinka iyo Kenya isla dowladda Kenya dhinaca kale waxaa jiray muran la xiriiray badda Soomaaliya oo arrimahan xuduudaha iyana la mid ah oo biyo Soomaaliya qayb kamid ah inay sheegatay arintaas intay ku dambeysay xukuumadda ra'iisul wasaare Umar maxayse arrimahaas ku soo kordhisay wallahi arintaas iyana nasiib darro kale weeye oo runtii badda Soomaaliya xuduudeeda iyo Kenya wax la yaqaan United Nations ka register garaysan weeye laakiin waxaan moodaa ilaa 2015 markii shirka halka lagu lahaayay wixii ka dambeeyay fikir noocaas oo Kenya maragtay continental shelf iska qalooc la gelinayo fikra ayaa soo baxay labada dawladood wax badan bay iska arkeen waxoogaa markii sidii sharcigu qabay sidii ay ahayd xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markii waxoogaa dowladda Kenya ay leysla keenay sidii nidaamku ahaa ay nala qaadan weysay dowladda Soomaaliya ogtahay dacwad bay gudbisay dacwadu waxay maraysaa intaan ogahay maalin dowlad waxaanu dhageysanay khubarada Soomaaliya u qaabilsan arintaas waxay noo sheegeen in 13 July fadhiga ugu horeeya lagu yeelanayo heeg lagu yeelanayo arinta ku saabsan bishan ku xigta 13 laakiin daraasado la sameeyay khubaradu waxay geliyeen rajo aad iyo aad u weyn ayayna geliyeen oo runtii aad iyo aad u fiican ayayna geliyeen oo ah marka la fiiriyo sharciyada marka la fiiriyo nidaamka xukuumadda soo dhacay marka si walba la fiiriyo marka la fiiriyo sida ay badda Soomaaliya ugu register garsatay qaramada midoobay in aynu badda inagu leh laakiin fursaddan ay ka faa'iideysan waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed markastay joogto arintaasi waa arin Soomaaliyeed
waa arrin aan lagu kala haraynin badda soomaaliyeed qof waliba af iyo adin iyo cilmi iyo caqli iyo shilin wixii ku difaaci karo wuu ku difaaco maanta Kenya iyo Soomaaliya waa kala dawlad xoog badan shacabka xooggiisa u baahanahay laakiin dawlad ahaan hal taako oo wixii Soomaaliya ay lahayd ma ka tanaasulay waxaan kala baaqal karo diraya aniga ka wasiir faafin ahaan waxa jira kambaniyo badda Soomaaliya meesha aan isku haysano anaka iyo Kenya baaris ku sameeyay si sharci darro ugu sameeyay waxa ugu horeeya kambaniyada dawladda Talyaaniga oo Soomaaliya xiriir wanaagsan lahayd Soomaalida waxaan leeyahay dawladaha halkaas si sharci darro ugu soo diray kambaniyadooda nala saar culayska waa inay joojiyaan dhulkaasi dhul Soomaaliya leedahay weeye lama baari karo daraasad lagama sameyn karo Soomaaliya iskala ninkii doonaya dhulkaas inuu baaris ka sameeyo dawladda Soomaaliya hayima way xukuumadda Soomaaliya ma kala xiriiraysaa dawladda Talyaaniga arintan shirkadaha sadaad sheegtay kaligood ma horta waa afar shan dawladood weeye laakiin waxaa loo sheegay blockiska ugu badan in Talyaanigu baarayo annaguna Talyaaniga xiriirka aan lahayn iyo walaalka aan lahayn kama filayn waa dawladdu ay ka galaysaa campaign laakiin Talyaanigu wuu joojiyaa dawladaha kale la joojiyaan meesha la isku haysto Soomaaliya iskale wuu la joojiyaa waata wasiir aad baan kugu mahad celinayaa waraysigan intaas baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ugu dambeyn haddaan fursad kugu siiyo dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka daawanaya maxaad oran lahaa والله دتك الصوماليين waxaan dhihi lahaa horta hal wax iska daayay aniga Soomaalida runtii ha ogaadeen bulshooyinka caalamka inay dad liitay ha ogaadeen Soomaalida marka laga fiiriyo xagga walaaltinimadooda istixgelintooda shacab ahaan qadiyad ahaan isjeclaashahooda waa dad isku afa waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad walaala waa dad xilida 25 sano inaan isdiino qabiil isku diino dawlad dhisan kari weyno qofba qof eedeeyo waxaynu kaga hoos maraynaa shucuurta kale caalamka kaga hoos maray waa baaba'ayna waxaan leeyahay qabyaaladda la iska dhaaf qabyaaladda maamulada la gelinayo iyo isteedada dhismaya la iska dhaaf aniga iyo qofka jooga meel Soomaaliya kamida isku nolol baan nahay haddii noloshu isaga ka xumaato anigana way ka xumaanaysa haddii aniga dawlad ahaan aan daciif noqdo iyagu sima daciif ma noqonay qabiil Soomaaliyeed oo guulaystay oo maanta oranaya anigu waan hormaray kuwii kalena way dhinteen ma jiro isku dan baan nahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacmaha isqabsadaan inay dawladooda dhexe sharafkooda ay difaacaan dawladda iyo marba intii xukunka haysa iyo magaca dawladnimadooda magaca dalkooda magaca sharafkooda magaca karaamadooda inay wada difaacdaan oo iska dhaafaan qabyaalad iyo isnacayb iyo isdil intaasoo sana ay soo wadanaysiin wadaan inay iska dhaafaan federalismka dhismaya looguma talagelin inuu isku dilo looguma talagelin qaab qabiila inuu u dhismo looguma talagelin waxaa lagu talagalay in dadka horumar lagu gaarsiiyo maamulka loogu dhaweeyo waa in qabiiladu iskula jiraan meel walba haddaynu dhisano tusaale ahaan isteeda qabiila qabiilada Soomaaliyeed qaarkood waxay dhex degaan 100 kilomitir 100 kilomitir weliba isku dagaalayaan kana waa sheeganaya isteedada qabiilka ku dhisan fikirka qabiilka ku dhisan oo la joojiyaa way Soomaalidu si deegaana oo dawladada wax isla qaybsataa dhammaantii aad baa mahadsantahay mudan wasiir waqti qiimaha badan aad nasiisay adigoo ogsoo hadalsayna shaqo qaran aad baa mahadsantahay waatahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida Kalson TV oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qiimaha badan ee uu noo horay toddobaadkan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo aan wax badan oo ku saabsan arrimaha siyaasadeed tan bini'aadanimo iyo guud ahaan xeendhaabka Soomaaliya iyo waxyaabaha ku salaysan waqtigan aanu ka wareysanay أنا داود يالله نكجم هذا علينا على الصعد كنا برامج كان أنا عبد الناصر محمد علي يا مقالة مقدسي دين كجسوا جديني أنت عندي بكل مدونة وحنا دين كجت كناس داسين بتقولي